dowladda Itoobiya oo colaad soo jireen ah ay kala dhaxayso Soomaaliya ayaa dejisay qorshihii ugu dambeeyay ay ku qabsan lahayd Soomaaliya. shirka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa waxaa heshiis ku kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya. heshiiskaasi waxaa la sheegay inuu yahay mid la doonayo Itoobiya gabi ahaanba in ay ku qabsato Soomaaliya. dalka Itoobiya ayaa hadda waxaa Soomaaliya ay u haysataa qaab siyaasad ahaan ah ayadoona maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya gabi ahaanba laga aramiyo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. laakiin hadda waxaa la dejiyay qorshe ku aadan in dadka Itoobiya oo si aad ah kaga badan kuwa Soomaalida ah inay soo dhaxgalaan gudaha Soomaaliya isla markaana ay ku beermaan. heshiiskan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa la sheegay in xukuumadda Soomaaliya madaxda uu ka yahay Xasan Cali Khayre iyo waliba xukuumadda Itoobiya in ay kala saxiixdeen. wuxuuna heshiiska u dhigayaa sida ay daabaceen wakaaladaha wararka caalamiga laguna qoray bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya in la sameeyo golo wasiiro oo ka kala socda dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya ayna yeeshaan hal hoggaan. waxaana sidoo kale heshiisku dhigayaa duqeyda dhaqanka Soomaalida iyo duqeyda dhaqanka Itoobiya inay sameystaan golo dhaqan oo hal ah ayna baxsadaan hal magac isla markaana ay yeeshaan hal hoggaan. waxaana heshiiska la sheegay in la dhaqangelinayo sanadkan aan ku guda jirnay 2018 bisha March. waxaa la dhisayaa golo wasiiro oo ka kala socda dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya waxaana hoggaanka u qabanaya wasiir Itoobiyaan ah. waxaana sidoo kale heshiiska uu dhigayaa in la sameeyo duqey dhaqan oo ka kala socda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana hogaamiye u naqanaya oday dhaqan oo Soomaali ah. waxaana taas lagu gol leeyahay sida lagu sheegay heshiiska inay isdhaxgalaan bulshada Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed iyo waliba shacabka Itoobiya. shacabka Itoobiyana ay gudaha Soomaaliya si caadi ah ay u degaan. kol hore waxaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf injineer Xuseen Maxamed Faarax Aydiid uu ka sheegay idaacadda BBC-da dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya inay ku heshiiyeen inay qaataan hal baasaboor taas oo macnaheedu uu yahay in qofka Soomaaliga iyo qofka Itoobiyaanka uu ka dhaxeeyo hal baasaboor oo Soomaaliya iyo Itoobiya isku mid ay noqoto. xuduud 2 kilomitir ayaa isla leenahay. xuduuddaasina baaqina arbaaxda ay walaalana waxa loo dhaxay mid hal baasaboor hal maxalli hada ciidan security iyo hal maxalli hada dhaqaaleena soo sanarna Yurub way soo sitay oo 26 wadan oo dagaalkii koowaad dagaalkii labaad dagaalamay haddana France iyo Germany adugu askar nimaamada walaalihiin. waxaana dadka khubarada ah ay sheegayaan in Soomaaliya iyo Itoobiya haddii heshiiskan uu dhaqan galo ay ka dhigan tahay macnaheedu in dadka Itoobiyaanka ay u soo guuraan gudaha Soomaaliya. waxaana minority naqanaya dadka Soomaaliyeed maadaama Itoobiya si aad ah ay shacabkeedu ay kaga badan yihiin dadka Soomaalida ah. waxaana mas'uuliyad ay ka saaran tahay arintan kaliidinteeda dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku aadan inay ka kacaan heshiiska hadda la doonayo in lagu mideeyo dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. ujeedkiisu ama salgiisu uu yahay in Itoobiya Soomaaliya ay qabsato.